السلام عليكم صاحبي الكسو دواada qisada saxaabigii weynaa ee Usayd ibn Hudayr radiyallahu anhu tani waa qisada ninkii ay malaa'igta samada ugu soo degtay si ay u dhageystaan akhrinta quraankiisa iyo codkiisa macaan balse marka hore waa in aan aadnaa bilowga qisada iyo soo islaamidiisa wiilkii reer Makka ee Mus'ab ibn Umayr ayaa yimiday magaalada Madiina wuxuuna ahaa daacigii ugu horeeyay ee imaada magaalada si uu u faafiyo dacwada wuxuuna degay guriga As'ad bin Surara oo kamid ahaa madaxda qabiilka Khasraj halkaas ayuuna ka bilaabay fidinta dacwada ee uu soo wakiishay nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dhalinyaradii reer Madiina ama Yasrib waxay si weyn ugu soo qulqulayeen fadhiisiyada daaciga waxaana soo jiidanayay macaanida hadalkiisa iyo dabcigiisa jilicsan iyo sidoo kale iftiinka iimaanka ee ka muuqday wajigiisa fadhi kastana ma dhamaan jirin ilaa ay ka baxaan dad islaamay oo ku biiray safka mu'miniinta haddaba maalin maalmaha kamid ah ayuu As'ad bin Zurara la baxay martidiisii daaciga ahaa ee Mus'ab ibn Umayr si uu ula kulansiiyo qaar kamid ah qabiilka Banu Abdul Azhal kadibna uu soo bandhigay diinta islaamka waxay galeen beer kamid ah beeraha Banu Abdul Azhal waxayna ag fariisteen ceel biyo macaan leh hareerihiisana ay ka baxaan geedo timir ah dadkii ku hareereysnaana waxaa kamid ah kuwa hore u islaamay iyo kuwa kale oo rabay in ay dhageystaan waxa uu sheegayo wuxuuna bilaabay in uu wacdiyo bishaaradiisana uu gaarsiiyo dadkuna si aamusan ayay u dhageysanayeen markaas ayaa loo tagay saxaabigeena maanta ee Usayd bin Hudayr iyo sidoo kale Sa'ad ibn Mu'aad waxayna ahaayeen hogaamiyayaasha qabiilka Aws ee degan magaalada Madiina waxaana loo sheegay in daacigii reer Makka uu ku sugan yahay meel u dhow guryahooda isla markaasna uu ku dhiiriday in uu sameeyo arintaas markaas ayuuna Sa'ad bin Mu'aad uu ku yiri Usayd oo u tag wiilkaas reer Makka ah ee yimid dhulkeena si uu u qalqaloociyo daciifadeena una ceebeeyo ilaahyadeena kana jooji oo uga dig inuusan mar dambe cag dhigin deegaanadeena Usaydna wuxuu qaatay warankiisii uuna u dhaqaaqay beertii laakiin markii uu As'ad bin Zurara arkay isagoo soo socda ayuu wuxuu u sheegay Mus'ab iska jir Mus'abow kani waa hogaamiyaha kan ugu miisaanka culus xagga caqliga iyo karaamada waana Usayd bin Hudayr haddii uu soo islaamana dad badan ayaa raaci doona Usaydna markuu yimid goobtii wuxuu istaagay hortooda wuxuuna si kulul ugu yiri maxaad u timaaday dhulkeena maxaase idinku dhiirigeliyay in aad ku jeesjeestaan daciifadeena ka taga xaafadan haddii aad naftiina daneynaysaan markaas ayuuna Mus'ab u jeestay Usayd isagoo ku hadlaaya cod degan daacadnimana ay ka muuqato wuxuuna ku yiri adiga oo ah sayidka qoomkaaga ma jeclaan lahayd wax ka khayr badan wixii aad nagu dhahday Usayd wuxuu yiri waa maxay Mus'abna wuxuu ku jawaabay nala fadhiiso oo naga dhageyso haddii aad ku qanacdo wixii aan ku sheegno waa sidii aan rabnay haddii aad ku qanci weydana waan idinka tagay oo mar dambe idin ma soo laabaneen Usayd ayaana warankiisii ku dhuftay dhulka kadibna fariistay Mus'ab wuxuu bilaabay in uu u sharxo xaqiiqda islaamka wuxuuna u akhriyay qaar kamid ah aayadaha quraanka isla markaasna wajiga Usayd ayaa iftiimay farxadna ka muuqatay wuxuuna ku yiri ii sheeg waa maxay hadalkan quruxda badan iyo sidoo kale ii sheeg hadalkan ay ka muuqato weynida ii sheeg sidee baad yeeshaan marka aad doonaysaan in aad soo gashaan islaamka Mus'abna wuxuu ku yiri waa in aad qubaysataa dharkaagana aad nadiifisaa waxaad naqiraysaa in ilaahay mooye ilaah kala jirin maxamedna yahay rasuulkiisa kadibna laba ragcadood ayaad tukanaysaa Usayd waa uu istaagay ceelkii ayuu dul tagay biyihiisana isku daahiriyay kadibna wuu ashaatay oo laba ragcadood oo suno ah ayuu tukaday maalintaas safka islaamka waxaa ku soo biiray haliyey kamid ah geesiyaashii carabta iyo mid kamid ah madaxda waaweyn qabiilka Aws qoomkiisana waxay ugu yeeri jireen al-kaamil sabab la xiriira aqligiisa dheelitiran iyo in uu ahaa nin seef iyo qalinba leh isagoo ahaa fardooley xirfad leh isla markaana wax akhriyi kara waxna qori kara waana xili ay aad u yaraayeen dadka wax akhriya ama qora islaamnimadiisa waxay sabab u noqotay islaamnimadii Sa'ad bin Mu'aad radiyallahu anhu islaamnimadii labadoodana waxay horseeday in dad aad u tiro badan oo kamid ah reer Aws ay islaamaan ugu dambeynna Madiina waxay noqotay halkii uu ku hijroon lahaa rasuulka Ilaahay sallallahu alayhi wa sallam kadib markii Usayd uu quraanka ka maqlay saxaabigii dhalinyarada ahaa ee Mus'ab bin Umayr wuxuu jacayl aad u qoto dheer u qaaday quraanka wuxuuna u jeclaaday sida qof uu jeclaado qofkiisa uu qalbiga ka jecel yahay quraankuna wuxuu noqday shaqadiisa ugu weyn iyo mashquulkiisa joogtada ah mar walbana waxaa lagu arki jiray laba xaaladood midkood isagoo mujaahid ah kuna dagaalamaya fi sabiilillah ama isagoo fadhiya akhrinayana kitaabka Alle codkiisa wuxuu ahaa mid macaan qiraa'adiisana waxay ahayd mid degan oo xaraga leh wuxuu ugu jeclaa akhrinta quraanka marka la gaaro habeen jawigana uu degan yahay saxaabadii sharafta lahaa waxay sugi jireen waqtiga uu akhrinayo wayna ku tartami jireen dhageysiga tilaawadiisa qofkii ay u suurta gashana in uu ka maqlo quraanka wuxuu u maqli jiray sidii in hadda lagu soo dajiyay xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sida dadka dhulka jooga ugu raaxaysan jireen akhriskiisa ayaa sidoo kale la sheegay in makhluuqaadka samada ay ku raaxaysanayeen haweenada kamid ah Usayd wuxuu fadhiyay meel xoolaha lagu xareeyo wiilkiisa Yaxyana agtiisa ayuu hurdaa faraskiisina meel u dhow ayuu ku xirnaa habeenka wuxuu ahaa mid degan cirkana wuxuu ahaa mid nadiif ah xidigihiisana ay ifayaan wuxuuna bilaabay in uu ku akhriyo quraanka codkiisa macaan alif lam mim ذلك
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. markaas ayuu maqlay faraskii oo u dhaqaaqaya si xoogan ilaa uu ku dhawaaday inuu gooyo xarigga lagu xiray. markuu joojiyey akhrinta faraska wuu degay. markuu mar kale akhriyeyna والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. faraskii mar kale ayuu si xoog badan hore ugu booday. wuu aamusay, faraskana wuu degay. arrintanna way soo laalaabatay mar kasta ee uu akhriyo qur'aanka. usaydna wuxuu ka baqay in faraska uu ku tunto wiilkiisa Yaxye. sidaas darteed ayuuna u joojiyey akhrintiisa. laakiin markuu cirka u jeestay wuxuu arkay daruuro u eg dalad qurux badan. indhihiisana hore uma ayna arkin wax ka yaab badan. waxaana ka laalaaday laambado ifaaya oo cirka oo dhan iftiin ka buuxiyey. kadibna kor ayay u kacday, wuuna fiirinayay ilaa ay ka dhammaadaan aaggiisa oo dhan. subaxdii ayuu u tagay nabigeena Muxamed salawaatullaahi wasalaamun wuxuuna ugu warmay wixii uu arkay. nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku yidhi, kuwaasi waxay ahaayeen malaa'ig ku dhegaysanaysay Usaydow. haddii aad sii wadi lahayd dadkoo dhan way arki lahaayeen, kamana qarsoomeen. usayd bin xudayr radiyallaahu canhu wuxuu nabiga sallallahu calayhi wasallam sheegay in qalbigiisa uu noqday mid daahir ah oo iimaan badan. maalin ayaa waxaa dhacday in rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu si kaftan ah gacantiisa ugu muday dhinaciisa. usaydna wuxuu yidhi, waad i xanuunjisay rasuulkii ilaahayow. xabiibkeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku jawaabay, iga aarso. usaydna wuxuu ku jawaabay, adiga shaati ayaad qabtaa, anigana shaati ma aanan qabin markii aad imudaysay. nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu kor u qaaday shaarkiisii. isla markaasna usayd ayaa ku dhegay, wuxuuna bilaabay inuu dhunkado dhinaciisa. wuxuuna yidhi, rasuulkii ilaahayow, tani waxay ahayd tan iyo markii aan ku bartay wax aan jeclaa. maanta ayaana helay. rasuulka sallallahu calayhi wasallam isagana jeceyl ayuu ugu abaalgudi jiray jeceylkaas. usayd wuxuu yidhi, waxaan u imid rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo aan ugu warmay reer ka mid ah ansaar, oo ay ku jiraan reer danyar ah, intooda badanna ay haween ahaayeen. nabigeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku yidhi, hadda wax gacanta nooguma jiraan. haddii ay wax noo yimaadaanna xasuusi. markii hanti ka timid dagaalkii Khaybar la qaybiyey, nebiga wuxuu si gaar ah wax ugu siiyey ansaarta. usayd wuxuu ku jawaabay, ilaahay khayr ha ku siiya nebigii ilaahayow. nebiga naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu ku yidhi, idinka ansaar ahaan ilaahay ha idiin awaal mariyo. waxaad tihiin dad cifad iyo samir leh, laakiin waxaad la kulmi doontaan takoorid aniga iga dambayn doonta. ee samra ilaa aad igula kulantaan, ballanqaadkiinnuna waa xawdka inshaa allah. usayd bin xudayr radiyallaahu canhu ma sii noolaanin muddo dheer kadib. ilaahay ayaana oofsaday xilligii Cumar ibnulkhadaab radiyallaahu canhu, waana sanadkii 20aad ee hijriyada. markii uu geeriyooday waxaa la sheegay in lagu lahaa dayn dhan 4,000 oo dirham. dhaxal sugayaashiisana waxay damceen in ay iibiyaan dhulalkiisa si ay deymaha uga bixiyaan. laakiin markii Cumar ibnulkhadaab arrintaasi uu ogaaday, wuxuu yidhi, ma ogolaanaya in carruurta walaalkeen usayd ay iibiyaan hantidooda. wuxuuna la hadlay dadkii deymaha ku lahaa, waxayna ku heshiiyeen in midhaha beerta ka baxa ay iibsadaan muddo 4 sano ah. ilaahay ha u naxariista usayd, ilaahayna ha u naxariista dhammaan asxaabadii rasuulka sallallahu calayhi wasallam. daawadihii sharafta leh, halkaasi ayaan ku soo koobaynaa qisada saxaabigeena sharafta lahaa ee Usayd ibnu Xudayr radiyallaahu canhu.